jiray ilaa yaraanteedii aad u jeclaa inaan mar walba wax kariyo because familkeena anaa curad u ahaa waxaa jeclaan jiray mar walba yani wax oo guri laga karnaa bariisi baastada qaabka loo karnaa qaab ka duwan inaan u kariyo internetyada sawirada quruxda badan cunooyinka soo dejisan jiray waxaas quruxda badan qaabka u karin lahaa ku fikiri jiray anoo yar. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابتا كسر هذا معلم channel وفيديو كله عصب ورنتي عن كل استاجد دونا أنا وحاجة برتين أنت بدن إن رنتي وحولبو أو إسوجيتو عن اللي وداعو وحاد إسوجيتي قبل الصوماليات نسرع عبد الدون عارتين سفر كي ديرا سوق شيء نولش هذا إيوه حلقة ما تاجن تمركز وفيديس شخصيا horta waxyaabo waxaa jira ayada u unique ah oo dadka kale uga duwan doon kaas u fiiris gaar ahaan gabdhaha markay soo bixaysa kow astaan oo lagu baranayo cunto kariska iyo waxyaabaha la midka ah dad badan la yaabsana dabcan dhahay cunto karis maxaa waayo heer ma laga gaarayo Soomaaliya oo qof oo professional oo cunto ku ah oo runtii la dhihi karo qofka professional sida adduunka camal adduunka qofka noocan oo kale ah in la helo way adag tahay markaas u fiidaysid laakiin ayada riya lahayd hamiye lahayd hamiye lahaydna maanta ay ka maqalisa dabcan waxay naga sheekaysay taariikhdii ay ku soo bilowday nolosha maanta ay haysato iyo waayihii ay soo martay iyo safarkii dheeraa ee u soo gashay runtii waa halgan aan la dhihi karaa qofku markuu curud yahayna oo haddana gabar uu si yahay uu kasii xadiraa markaas u fiidaysid situation walbo oo ku soo maro waxa isku dayaysaa inaad ku maareysid qaab walba oo ugu wanaagsan oo aad ku xalin kartid adoo ka fikiraayo horumarkaaga iyo marxaladda markaa taagan ee xaaladda guriga dabcan markaa wax la dhisaayo hami aad leedahay way adag tahay inaad ciyow ka mir dhalisid waayo waxaa la kulmaysaa challenge kala duwan ani la hadlaya hadda kahor waxaan la kulmay macnaha markaan YouTube bilaabi jiray anoo cusub oo قياس هان وحين هيستا أملنا بقول سبسكرايب مركزي وفيديس هذا عصبة أسبوعية سده أسبوع عفر أسبوع عمل إهات وحاس هني وأهنتن سده أقوم اللين كرتا أخوجاري كرتا معناها سبسكرايب فرض بنسوي كل كرتا سده بشوف صوت حق الكرتا عمل معناها هدف نوع عصا لها مرك أورز كو ولو تشالنجي أنا لكل مقار لكن هذا نوع حمود ده وحبي يبنا وحي إهات وهرب حد إنا إني جوان إنيكا وليا الله باهد العاقبتي لا أباهن تعاونات معناها إنا بن آدم عاود هذا وحكوا حنا بدون ملهان ويا حلا كل ما يسا وحكاية بيو من قاركود حس هذا كان عام وايو قف عام وايو صومالي عن كذكتي مجا عمانت وهاي صومالي سو جالسي ويا قف ما أنت جوز سكجو وضح عان نوده ملهان adina waxa u baahan tahay in magaciisa ka faa'iideysatid oo uga faa'iideysta qaab asleedahay bal halagu barto dad badan ku soo raacaan subscribe akeshid macnaha hadaf aad leedahay markaas u fiirisid qof walbo youtuber ana waxyaabaha aan ka hadlay u fahmi karaa dabcan waxyaabaha aan la kulmay maxay ahayd dad badan caan ah ayaan wareystay aan la fadhiistay waxaan dhahnay miyo arrintan sida ugu madalisan waxaan leeyahay ana saan ku sameeyay runtii markaas u fiirisid wixii qof walba wuxuu rabaa inaad jeebka wax u gelisid hami kala malahan laakiin challenge uga adag oo aar inaan la wadaago qof in aadan oo la kulmaayo markuu rabo inuu magac sameeyo gaar ahaan social media waxyaabaha ugu badan caqabadaha ugu badan kuwaas ku ka marka gabadhan way ka duguntaa ayada kaas oo markaas u fiirisid dabcan waxyaabaha aan sheegay la yaabo inay soo martay la yaabo inay soo marin laakiin maanta waxay taagan tahay alxamdulillah oo waxay taagan tahay heerkii ay higsanaysay in muddo ah ayaa la dhihi karaa waan u hambaleynayaa shakhsiyan waxay soo gashay safar dheer oo taariikh ah oo runtii nolosheeda ay xusi doonto aan dhihi karo inta badan waayo marka aragtid inaad hoos wax ka soo bilowdid wixii hoos ka soo bilowdidna maanta ku meel dhalay waxaad dareemaysaa farxad waxaad dareemaysaa in waqtigii aad soo gelisay uusan ka dhumin oo hadafkii aad tiigsanaysay aad ka meel dhalisay laakiin hadday bilaawi lahayd ee dhexda uga hari lahayd maanta way shalay markuu shalay qabi lahayd ama xisdii lahayd barigaas I wish I knew camal waxaan inay saan noqonay ma ogeen maxaa uga haray qof bin aad inuu qoomay laga yaabo mar walba marka
talada aan rabo inaan nasiyo aan ka baran karno Nasra Cabdidoon waxaa ka mid ah in hadaf walbo aad leedahay target sameyso targetka aad leedahay ilaahay tala saaro adoo xumaan iyo waxyaabo lamid aan sameynaynin waxyaabo runtii diinta dhaqankaada dhaawac aan sameynaynin hadafkaaga ilaahay tala saaro hadduu khayr kugu jiro waa helaysaa dabcan laga yaabo inay jiraan gabdho fara badan oo runtii aan wiil aan dhaho gabdho keli ma ahan oo hami lahaa laakiin hamigooda aan miro dhalin waxyaabaha ugu badan keeni kara waxaa waaye challenge qof ka hor imaanaya wuxuu yahay challenge aad u adag oo u baahan dulqaad samir iyo macnaha inaa waqti u hurtid waxan ay u baahan tahay wax sahal ku imaanaya ma ahan inta badan Nasra Cabdidoon way ka muuqataa marka si loo fiiriyo physical appearance ka fiirisid inay tahay gabar asturan xijaaban oo runtii la dhihi karo diinta way ka muuqataa markaas u fiirisid waayo qofka hadii uu asturnaan lahayn ama oo marxalad kale ku jir lahaa xijaab iyo waxyaabo noocaas camal aysan ka muuqan lahayn waxaa moodaa hadda magaca maanta ay samaysay intaasoo kun oo ku xiran inaysan ku xirnaan dad ku xiran inta badan wanaageeda ixtiraamkeeda iyo asturnaanteeda horta lagu soo raacan baa dhihi karaa safarkina ilaahay uu ku guuleeyey runtii waxay ahayd sheeko isoo jiidatay oo qisadeeda xambaarsan oo aan rabo inaan la wadaago caqabadaha noocaas oo kale markaa aragtaana dadkiina cusub oo doonayo inaa ka marlisaan hadaf aad leedahay waxaan dhihi lahaa samra dulqaata weligiin alihiina ha isku dayina in aad dib u laabataan adoo arkaayo hadafkii aad dejisatay horta marka la rabo inaa wax laga mir dhaliyo qofka waxaa fiican oo la imaado mowqif adag waayo hadda ka hore waxaan la hadlay qof runtii magaca ku leh bulshada Soomaaliyeed haddii ogaana magaciisa waa qaadi lahaa waxaan ka faa'iiday xikmaddan ka faa'iiday waxay ahayd oo weydin doonaa xikmada ayadoo dib aan liis sheegi doonaa qofkaas qofku yahay waa qofka inuu asaga ogolaado magaciisa laga qaado marka xikmad yaraan ka faa'iiday xikmadda ka faa'iiday waxay ahayd waan la hadlay waxaan dhahay walaalow niyow youtuber caana tahay magacaa leedahay maasha Allah youtube-kaaga uu kala kacsan yahay youtuber cusub ahay bal ii waran waxaan markaan ka hadlaya waa 6 bilood ka hor waay marka waan weydiiyey adi sheeku iga sheekeeyey agaran Soomaali marka weydiis qofku iska amaani ko anisana Soomaali adiga wuxuu iga sheekeeyey inuu marxalado oo adag u soo maray oo dambeyn maanta adiga kursiga lagu isku saaran yihiin dib uu qabin asal soo raasana camal marka wuxuu iga sheekeeyey markaan wacay arrinta aweydi ugu qoslay wuxuu ugu dhahay saacadi ii soo wiciisay oo hadda tali ii weydiinaysid waxaa umaynaa samarkii hore ahayd ama qiyaas ahaan hadda samaris kala soo dhow waa nastan or camal sanad camal qiyaas markaas u fiiris marka wuxuu ugu dhahay saa hadda adiga caawinaad ii weydiisanaysid ay leedahay ii caawi oo tali ii weydiinaysid ayaan 2 sano ka hor qof uu cuuda u weydiinay maanta anaa ii weydiinaya marka wuxuu dhahay adiga laga yaabo in sanad kadib 2 sano kadib adiga qof kale uu ku soo waxa caawinaad uu ku weydiisto waa sax adduunku ay jiraan markaas u fiiris taan u socona wareegto aan ka wada marka taladiisii waxay ahayd aan ka faa'iiday waxay ahayd ha isdiibin hanay jabin hore u soco xumaantana ka fogow intaas asaga ah qof youtuber caan ah u dhahay walahi markin wali markin qof youtuber caan ah oo ugu dhahay ha isdiibin hanay jabin ilaahay tala saaro wax xumaan iyo inaa qof bini'aadan caysid ka fogow waa wax aad u fiican qof hadduu ku caawin xitaa inta saacadan ku ah qofka asaga magaciisa oo saddexan waa inuu sheegi doona asxaabta Nasra Cabdidoon waxaa leenahay hore u soco hambaliyo dabcan markii gabadhan ay basically ayada homekeeda waa Muqdisho hometown aan dhaho caasimadda Soomaaliya waayo laakiin safaradeeda ayaa waxa u badnaa maalmihii ugu dambeysay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul marka dad badan waxaa jira oo arrin qalad ku dhahay ayda oonaysa maraan arkay runtii aad ugu xumaaday inaan dib uga laabto ma rabo video asaga laakiin wax hore ahayd macnaha waxa la dhahay Istanbul ku raaxaysanaysaa ilmahaaga reerka waa cilaysay qofkii duruufii uu joogay ma la ogo qofka hami uu leeyahay dabcan wuxuu leeyahay ula jeedo dabcan arrimo asaga u qaasan jira u gaar ah ma la ogo marxaladaha u gaarka ah uu ku sugay marka asaga macnaha ma Soomaaliyeed qaar kood xisleedahay ma waxa si kay ama kulli ma laga dad qaar ay jiraan qaab qaldan oo fikiraan markaas u fiiris runtii aad ugu xumaaday in gabar Soomaaliyeed oo asturan xijaaban oo
bulshada ku leh oo laga yaabo beri ka maalin in magaca Soomaaliyeed ayada wadato ee tartan cunto karin ama cooking ama wax noocaas camal caalamka magaca Soomaaliyeed ku matasho laga yaabo in dhacdo hamigeed inuu yahay laga yaabo ilaahay macnaha inuu u rumeeyo ayadoo marka warmaysan waa arkay oo dhahayso hamigeyga waa fog yahay ujeedada dheer aan leeyahay haddana waxaa moodaa mirihi ayaga ahaa 99% aan dhaho 100% inay keentay gacanta midigta ku hayso ilaahay cimri siin inta kale ay dhameystiri doonto marka video ay jiro ay soo gelisay ayadoo ilmeynayso aad ugu xumaaday dabcan dadka ku xadgudbaysa inay sheegay marka waxaan dhihi lahaa on qof marka aragtaan ha qiimeynina marka asaga wax uu ku jiro waxa la qiimeeyaa dib u fikir dabcan qof hooyo ah oo ilmaheeda soo cidlaysa ujeedada ugu weyn ee dhehayso macnaha macquulgal ma inay dhahdo ilmahaaga cilde reerkaaga cilde ka tag dalkaaga hooyo sablaan oo tag meel kala tag iska raaxayso oo ilmahaaga joogin qof bini'aadan ku fikira adduunka inuu jiraan ma maleena ma aqaan qof xawiyaan xoolo mooge marka ayadoo ooynaysa arkay dabcan oo dhehayso milo ogo marxaladan ku suganahay ujeedada inta uu joogo ma ogo waa sax أنا مركز واحد أركض دنك الكفير دنك حن كلي ولي ما لقى فيريو طبعا فيديو أسجع هاي هذا ولا يسوق دبنا ورات مرة لكن حكم دي هاي سفر كان دير أي سوق الشيء نسرع عبد الدون أصحاب الفيديو هنا ونوصل دير مرة نسرع عبد الدون هم بلي عليها هاي بلنت أنا هي توح لبا ونكسن أبوستي فأنا نلو داقو وهيك لك عنا وحقنا جاك أنا سبسكرايب نوصل